xasaan waxa uu raacay ayadiis waxayna u soo iibisay jallaato macaan oo uu jeclaa. Iyagoo aad u faraxsan ayay ku tiri, waxaan kaaga sheekaynayaa sheeko aad u qurux badan. Waxaa jiray mid ka mid ah saxaabada kuwa ugu sarsareeyay oo magaciisa la oran jiray Abu Cabdiraxmaan Sulami. Waxa uu dhashay xilliyadii rasuulka uu noolaa, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Aabiis ayaa qur-aanka baray, kadibna tajwiidka iyo qiraa'ooyinka waxa uu si fiican uga sii bartay saxaabadii qayb ka mid ah. Waxa uuna noqday xaafid qur-aanka aad u yaqaana. Waxa uuna go'aansaday inuu dadka qur-aanka baro 40 sano oo xiriir ah. Muxuu sidaa u sameeyay? Waxa uu maqlay hal xadiis oo rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee laga wariyay. Waxa uuna go'aansaday inuu ku camal falo. Ma hal xadiis oo kaliya ayaa ku sababay inuu dadka qur-aanka baro 40 sano oo dhan? Haa, Haddaba xadiiskaas muxuu yahay? saxaabigii la oran jiray Cusmaan bin Cafaan Allah ka raali noqdee ayaa uga sheekeeyay in rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee yidhi, waxaa idinku khayr badan qofka qur-aanka barta ee haddana dadka bara. Taasina waa sirta labaad ee aan qur-aanka u xifdinayno. Xasaan iyo ayadiis waxa ay ku laabteen gurigii, isla markiiba waxa uu u degdegay qolka walaalkiisa ka yaraa. Waxa uuna ugu celceliyay aayadaha suuratul Faatixa, si fiicanna waa uu baray. Kadibna xasaan waxa uu u yimid ayadiis, waxa uuna ku yidhi, Walaalkay si fiican ayaan u baray suuratul Faatixa. Waxaana rajaynayaa in aan ka mid noqdo dadka ugu khayrka badan. Allah ku barakeeyo wiilkaygiiyow, aniguna aad baan ugu farxay. Waxaadna tahay wiil aad u caqli badan oo khayr badan shaqaystay. Sidee khayr badan aan u shaqaystay? Nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, qofkii qof baraa hal aayad oo kitaabka Alle ka mid ah, waxa uu helayaa ajirkeeda mar walba oo qofkaasi akhriya aayadaas, isaga oo ajirkiisa waxba laga dhimaynin. Adiguna wiilkaygiiyow, waxaa bartay walaalkaa suuratul Faatixa oo idil, waxaadna helaysaa ajirkeeda oo idil mar walba uu walaalka akhriyo, isagana ajirkiisa waxba lagama nusqaamin doono. Maalintii labaad xasaan waxa uu aaday dugsigiisa isagoo u faraxsan. Saacado kadib waxa uu soo laabtay isagoo murugaysan. Sariirtiisa ayuu fariistay, wuuna aamusay. Ayadii ayaa ku tiri, maxaa dhacay oo aad u murugaysantahay wiilkaygiiyow? Waxaa jira tartan dugsiga lagu qaban doono. Waxaana guuleysanaya qofka waalidkiis guddoonsiiya hadiyadda ugu qaalisan. Lacag aan waalidkay hadiyad qaali ah ugu gadana ma haysto. Taas ayaan la murugaysanahay. Ha walwalin wiilkaygiiyow, aniga ayaa kaa caawinayo in aad waalidkaaga guddoonsiiso hadiyadda ugu qaalisan. Laakiin hal shardi oo kaliya ayaan kaa rabaa, waa in aad adiguna i bartaa suuratu Iqra. Xasaan wuu ku farxay fikradda ayadiis, waxa uuna ku dadaalay sidii uu u bari lahaa ilaa ay si fiican uga baranaysay suuratul Calaq. Kadib waxa ay isu raaceen suuqa si ay ugu soo goobaan hadiyadda ugu qaalisan ee uu hiban lahaa waalidkiis. Waxayna istaageen afaafka hore ee mid ka mid ah goobaha ganacsiga. Waxa uuna yidhi, Hadda ayaan fahmayay. Waxaan geenaynaa moobilada casriga ah. laakiin muddo kadib waxa ay noqon doonaan moobeello laga tegay oo aan qiimo fiican lahayn. Haddaba aan iibino dhar qaali ah iyo catar udgoon badan. Taasna dad badan ayaa keeni kara. Hadiyad fiican oo aniga geeyo ma garanayo. Si aan wax yeelaa. Aniga ayaa kaa caawinaya oo garanaya meesha laga heli karo. Dhaqso ii sheeg. Xageen ka heli karaa? Xasaan ayadiis waxay furtay boorsadeeda, waxayna ka soo saartay kitaab Qur'aan ah. Waxa ayna ku tiri, tan ayaa ah hadiyadda ugu fiican ee waalidka ku farxi karo. Sidee buu kitaabku noqday hadiyadda ugu wanaagsan? In kitaabka la ilaaliyo, la xifdiyo, laguna dhaqmo ayaa ah hadiyadda ugu wanaagsan ee ay waalidka aad ugu farxi karaan. Rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, qofkii qur-aanka bartaa ee akhriya ee ku camal falaa, waalidkiisa waxa uu xiri doonaa maalinta qiyaamo taaj oo nuur laga sameeyey, iftiinkiisana uu la mid yahay kan qoraxda. Waxaa kale oo uu xiri doonaa 2 mar oo aan weligood adduunka la keenin. Waxa ayna leeyihiin, maxaana loogu xiray dharkan? Waxaana loogu jawaabayaa, baridda iyo ku dhaqanka ubadkeena ee qur-aanka kariimka ah ayaa laydinku abaalmariyey. Taasina waa sirta saddexaad ee aan qur-aanka u xifdinayno. Xasaan
waxa uu soo iibsaday hadiyadii, ayadiisna waxa ay ka bixisay qarashkii, waxa uuna guddoonsiiyey waalidkiis hadiyadii ugu fiicnayd. Saacado kadib waxa uu soo laabtay isagoo aad u faraxsan, waxa uuna yidhi, waa ku guulaystay tartankii dugsiga, waxaana la i siiyey hadiyadii ugu fiicnayd. Maxaa yeelay waxaa la ii aqoonsaday inaan keenay hadiyadii ugu qaalisanayd oo waalid la guddoonsiiyo. waxaana ku dadaalayaa in aan aakhirana guddoonsiiyo waalidka hadiyadda ugu qaalisan hadduu Alle idmo. Xasaan waxa uu waalidkii uga sheekeeyey sida uu ugu guulaystay tartanka, waxa uuna u ballan qaaday in Quraanka uu xifdinayo, ku dhaqmayo si uu waalidkiis ugu xiro taaj oo nuur laga sameeyey maalinta qiyaamo. Waalidkiisana aad bay ugu farxeen, wayna u duceeyeen. Isla galabtiiba Xasaan aabihiis baa sikadiisa ugu keenay hadiyad qurux badan. Markii uu furayna waxa uu arkay kubad uu aad u jeclaa, waxa uuna ku qayliyey, Aabbo, waa mahadsan tahay. Mar kasta oo aan kubadda ku ciyaarayna waa kuu ducaynayaa. waayahay, laakiin waxaan ku heshiinaynaa in aadan guriga dhexdiisa ku ciyaarin. Waxaana lagaa rabaa in aad heshiiskaas fuliso. Halka mar le aan ku ciyaaro ee ii oggolow. Maya, ma lagu ogolaan karo wiilkaygiiw. Haye hooyo. Xasaan si degan ayuu u fariistay, hooyadiisna jikada ayay gashay. Daqiiqada kadib waxa uu bilaabay in uu guriga ku dhex ciyaaro. Darbe xooggan buu hal mar ku tuuray, kadibna kor bay u booday. Waxa ayna ku dhacday nalkii, si xun ayuuna u burburay dhaladii guriga oo dhan bay ku firdhay. Hooyadiisna jikada ayay ka soo booday, waxayna aragtay sida ay wax u dhaceen. Aad ayayna ugu qaylisay, waxayna tidhi, mar hore kuu sheegay Xasaanow, haddana ii keen kubadda, dhulkana kaale ila nadiifi, ciqaabtaadana waa ka fikiri doonaa. Xasaan waxa uu weydiistay hooyadiis inay cafiso, kubaddiina wuu siiyey, dhulkiina wuu la nadiifiyey. Kadib isaga oo murugaysan ayuu meel iska fadhiistay. Wax yar kadibna waxaa u soo gashay ayadiis, waa ay soo ag fadhiisatay oo madaxa ayay u salaaxday, waxayna tiri, ayay hooyada ayaa ii sheegtay sida ay wax u dhaceen. War farxad leh ayaan ku wadaa. Waa maxay warka farxadda leh? Hooyada waan kaaga ergeeyey oo waxaan ka codsaday inay ku cafiso. Ergadiina way iga yeeshay, kubaddiina way kuu soo celisay, laakiin waxaa shardi ah in aadan mar kale guriga dhexdiisa ku ciyaarin. Ayay waa mahadsan tahay. Wax badan baad ii dadaashay oo aad ii ergeysay. Laakiin wiilkaygii kuuma ergeyn karo maalinta qiyaamaha. Haddaba yaa ii ergeyn kara maalinta qiyaamaha? Quraanka ayaa kuu ergeyn kara. Sidee Quraanku iigu ergeyn karaa? Quraanku waxa uu ergeynayaa maalinta qiyaamaha saaxiibadiisa, wuuna difaacayaa. Oo rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, Quraanka akhriya, maalinta qiyaamaha waxa uu shafeeco qaadayaa saaxiibadiisa. Taasina waa sirta afraad ee aan Quraanka u akhrinayno. Yaa waay saaxiibada Quraanka? Waa kuwa daa'ima Quraanka akhrintiisa ee ku dadaala xifdintiisa iyo fahamkiisa, kuna camal fala. Waxaana Alle ka baryayaa inuu inagu daro kuwaas.